dhegaystayaal si guud markii wax lagu fiirsado ifka wixii ifafaale ka jira oo idil dadku way wada arkaanoo waa loo wada indhaleeyahay. dhulka, cirka, hawada, badaha iyo webiyada, cimilada, roobka iyo duufaanada, abaarta iyo aaranka, xoolaha oo duurjoog, dabjoog iyo dugaagba leh, dhaqamada kala gedisan ee dadyowga dunida ku kala baahsan. intaasiba waa ifafaalayaal qof kasta oo nool u muuqda oo uu si uun ku dareemi karo. iyada oo sidaasa oo ifafaalayaasha dabeecadda iyo kuwa noloshuba ay horteenna waran yihiin ayaan haddana isku indha lagu arag. waxaa jira dadka qaar aad moodo indhahoodu inay indhaha inta badan ka duwan yihiin. waxay ku hawlan yihiin aragtida hore intay ka gudbaan inay u daadegaan dulucda jiritaanka iyo farsamada bulaalka iyo baaba'a. waxay hawshoodu tahay haddaan guuldarraysanno inay afkeenna ku baroortaan, haddii ay inoo ahaatana iyaga oo inaga wakiil ah inay heese farxadeed ku luuqeeyaan. malaha garatee cidda aan u jeedaa waa qolada fanka, gaar ahaan suugaanyahanada oo iyaga qudhooda ay maansayahanadu ugu horreeyaan. waxaa aad iiga dhaadhacsan hodantooyada xagga erayada markii laga yimaado hibada ugu weyn ee hal abuurka runta ah uu eebba siiyey inay tahay awoodda wax tilmaamidda. bal u fiirso, hebel oo maansayahan ah iyo adiga oo aan ahayni markii aydun dhul abaari dilootay ku dhex sodcaashaan, dabadeedna maalmo kadib aydun ku soo noqotaan iyada oo intii aad ka maqnaydeen intay rabab fiicani maaruqeen ay dhirtii cagaar ka wada yeeleen, quruxdii noloshuna ay u soo hoyatay, foolxumada geerida waxay huwanaadaanba. dhacdadaas iyada ah markii lagaa waraysto sidii aad u sheegto iyo hal abuurkii aydun u soo wada joogteeni siduu gabayga ugu tilmaamo, waxa u dhaxeeya ayuunbaa u dhaxeeya awoodda tirinta maansada duulka hibada loo siiyey ee xagga eebbe laga guddoonsiiyey iyo inteenna kale. markaynu maansada soomaalida u kuurgallo waxaynu ogaanaynaa tilmaantu inay tahay ujeeddo iskeed u taagan oo la mid ah ujeeddooyinka waaweyn ee ay hal abuurada soomaalidu ka maansoon jireen welina ay ka maansoodaan. waxaa dhaxalka maanso ee aynu leenahay ku badan tilmaanta geela, tilmaanta fardaha, tilmaanta goobaha dagaalka, tilmaanta quruxda dumarka, tilmaanta dhulka iyo cimilada, tilmaanta dadka iyo dabeecadaha kala gaarkaa ee uu eebba ku abuuray. iskeedse ha u taagnaatee tilmaantu haddana waa ujeeddo aan sina uga maqnaan karin ujeeddooyinka kale ee maansada kolka uu hal abuurku wax ka tirinayo. kolka hadday arrini sidaa tahay, waxaa hubaal ah awoodda wax tilmaamidda iyo tilmaan qureexu inay yihiin waxa koowaad ee qofku tilmaanta maansayahanimo uu ku heli karo. waana isla awooddaa iyada ah hal abuurada qudhooda miisaanka ay tahay in lagu kala sarraysiiyo maalinta ay badartan maanso joogto. raggii haddaba wax tilmaamidda baalka dheer ku gashaday waxaa allaha u naxariista ka mid ahaa darwiishkii maansayahankii weynaa Ismaaciil Mire. wuxuu ahaa gabyaa hadduu wax tilmaamo aan lagu saluugin oo tixihiisa meel la is yidhaahdo ha laga toosiyo ama waxa looga daro aan laga heli karin. gabyaa wuxuu ahaa faylasuuf ah oo agagaarkiisa dhaqdhaqaaqa nololeed ee ka jira iyo wax alla wixii kale ka socdaba dhab ugu fiirsada, dabadeedna tixihiisa macaanka iyo murtidaba badan bulshadiisa ugu soo gudbiya. taasina waa markhaati madoonto haddiise laga maarmi waayo. waxaa malaha inagu filan cali dhuux oo buuni gabay ku tilmaamay markuu lahaa ba'da gabay Ismaaciil Miraa buuni ku ahaaye bayduu akhriyey weli ma oran yaa bedela kaastaba ha ahaatee ifafaalayaashii faraha badnaa ee Ismaaciil Mire uu maansadiisii ku tilmaamay waxaa ka mid ahayd abaar dalka ka dhacday, gaar ahaan waqooyiga sanadkii 1951. waxaa isxigsaday jiilaal dheeraaday iyo gugii la sugaayey oo isla dhibicdii la waayey. waa gugii markii laga samray ay siiga case u bixiyeen ee abaartii dadka iyo duunyadaba silcisay ay sababsatay. iyada oo kal dambeed ah oo aad loo niyad xun yahay asii aan deeqa eebba laga quusan ayaa galabtii dambe waxaa wada sodcaalay Ismaaciil oo markaa da'ah iyo nin ay hilba ahaayeen. haddii ay cabbaar socdeen ayaa waxaa dareenkoodii jiitay shimbirka guuguulaha lagu magacaabo oo inta geed dheer fiinta uga baxay si oohin la moodo u ciyaaya, afkana aan isku darayn. Ismaaciil oo horeyba abaarta aad uga walwalsanaa inuu wax ka yidhaahdana midhaa ku tashanaa ayay la noqotay waxa dhacay ee dadkii iyo duunyadiiba geesaha u dhigay inay guuguulahana soo gaareen, sidaasna uu la barooranayo.
markaas buu inta isagii ku halqabsaday oo sidii qof af soomaaliga la garanaya ula hadlay wuxuu u sheegay diihaalka uu qabo in lala qabo sida awgeedna ay oohintiisu tahay uun nafjeclaysi aan garowshinya lahayn. isla markiibana wuxuu siinayaa tusaalooyin uu ugu horraysiinayo geelii xoolaha ugu adkaysiga badnaa oo weyd la socon waayey iyo geeltirihii dambaabi jiray oo isaga dalaabay dabadeedna gaajo awgeed tuulooyinka nafta kula cararay, halkaasoo uu ka iltuugayo cunno iyo timir ay baahi u hayso si aan la siinayn, timir aanu gadan karin, timir haddii uu boobi lahaana ay askartu ku qabanayso, xabsigana uu ku galayo. wuxuu gabaygii ku bilaabay: guuguulihiiyow haddaad guga u ooyeyso, haddaad moodday keligaa inuu guba jiilaalku, ama aad gabooyaha ku marangama la diidayso, ay gocasho awgeed ilmadu kaaga goboolaysay, abaar gaagmarheebaa dhacday iyo gaadamoo kale. giddigood addoomaha waxaa gaaray saban weyne, gartaa maaha keligaa inaad gaar u cabataaye, guumays cerale baan ahee waranku gaarsiiyo. geelii adduunka u adkaa gobolla weydowye, golihii ka kici waa raggii gegdhahayn jiray, tuuladuu ilgaballaynayaa gobol barbaarkii, hadduu timirtan goob dhigi lahaa jingaday geline, ninna uma garaabeen haddaan gaarka laga hayn. markaas buu kula talinayaa inuu ku samro noolo oo idil dhibaatooyinka ay abaartu ku hayso, gaar ahaan dugaagga, dabjoogta iyo duurjoogta isaga guuguulaha ahiba uu ka midka yahay, sida gumburigii, biciidkii, garanuugtii, goodirkii, dawacooyinkii, shabeelkii, lo'dii, arigii, gammaankii iyo shimbirihii jaad ay ahaadaanba. waxaase xiise leh inuu gabayga ku xusay laba noole oo inkastoo dhibaatada abaarta ay inta kale la qabeen, uu iyaga ba' kale u dheeraa. waa shabeelkii oo nag laga dhigay markii haraggiisa laga ganacsaday, iyo ayixii oo inta daaqii loo sumeeyey ku baaba'ay, taasoo aanay soomaalidu aqoon jirin, ismaaciil qudhiisuna uu sababteeda garan la'aa. ugu dambaystiina waroo idin wuxuu guuguulihii ugu soo gunaanaday: hoy shimbir yahow, wax ma ogide buuqa iyo baroorta iska daa. marba haddaad weli ciyi karayso, cidi kaama sadroona oo naflay oo idil adaa maanta ugu roone, jooji guuguuda iyo cabashada, yaan heedha adiga wax lagaa dayine, dhuumo oo afkaaga xidho. wuxuu ku yidhi: gumburigii barbaa joogsaday iyo goroya cawshiiye, saryankii garbaha weyn lahaa goob ka kici waaye, waxa gooni daaqii habsaday, gubadadii hawde garanuugta, iyo deeradii gaag yar baa haraya, gobay iyo askari gayfan baa goodarkii jaraya, guuyadii iyo jiiskii hadday kala gol waayeene kama guuxo, aargoonlihii galiga toomoode, gaadiidkii la dhaansanahayiyo giindhaygii maraye, ahminkii la gowrici jiray, iyo gaabay arigii iyo goggii subaga laga dhoobi jiray, haatan gorofaad iyo basaas bay tibii kala go'een, gaadhidii dumarib. garaad faarax iyo maxamuud garaad mala gammaankiiye, neefkama gurxamo dooxadii garada fiicnayde, garoowe iyo bookh baa haraad loogu go'ayaayo, gocondho iyo daal bay qabaan, garow la'aaneede galowga iyo fiintii, naf bay giida la hayaane, gorgorkii iyo dhurwaagii laftaad garayax moodaayeb. shabeelkii gabraar lagu idlee, giira layn jiray oo godadkii kama soociyaan, gabanadiisii iyo hargihiisa nimankii gatay baa guuldarruu sidee. ayixii geyiga joogi jiray, guuto lagu saariyey gubniyaha hareeraha ka galay, gaariyaal wada ee geedihii sun baa loogu daray, geerinuu badaye wax ma garabsanine, maalin baa loo guddoonsaday. gurxankiiyo cabaadkiyo haddaad gooha damin weydo, adig aaba lagu gaadayaa gooshkan dabadeede, gaagaabso oo aamus yaan gaar lagaa qaban.